rafta leh waxaan jeclahay inay iga jawaabaan su'aashan gabadh ayaan guur ku heshiinay kadib markii aan ka wada hadalnay sidii aan arrinka u dhaqaajin lahayn waxaan ka dhaqaajin waayay waxa loo yaqaan koofeer waana iyo wax u sheeg waan kala daalay waan ogahay in koofeerku uu yahay shay aan ku banaanayn diinteena macaan haddana su'aasha waxa igu dhaliyay inaan arrinka faraha ka qaaday in kale mahadsanidin khayr Allah idin siiyo كوفيرك محل الله استعمال كوفيرك هدو يهي قبضها هلا قرحيو عروسده markay aqal galaysa la soo qurxiyo la soo naashnaasho dib male hatta waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam dumarka markay aroos galayaan waa la qurxin jiray wixii iyagu marka ay heli kareen bay ku qurxin jireen marka haday tahay hal qurxiyo timaha iyo muxuu ahaayay waxa loo marmariyo hal qurxiyo haday saas tahay dib male la maani'a hadii aadaabta sharciga la ilaaliyo haday maqsuudku tahay wax shariicadu diiday sida mesela taajka waxaan dhahnoo kale oo mesela maradan khafiifka ah loo geliyo haweenta carusada markay aqal galayso iyo wixii la mid ah noocaas oo kale haduu ka wadana marka ma banaana waa muharram laana wax weeyaan gabadhan yarteed guursanaysa ama islaantan guurka ka rabtaay inay dambi ku galiso ma إنما طاعة في المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم واحد بني آدم لقيله أو لقى أقبله أو لقى راعه وواح شريعته أين الديدين وحي شريعته الديدين إسكاف مدهم جوري كاها يودمع جور كاها يور كذا إسكاف داي أودن قرني إنه مسح الفندون تان حتى والدك يقول الله حقوق السوشيال جنبه وحلا يري وح آن معروف هاي لقى ما أطيعكر وح شريعته خلاف سن لقيه اللي مايو Soomaaliyeed sidaas daraadeed haday wax khaldan tahay ka aqbali maysid midna waan ku sheegiyo hadaad wax khaldan gurigiina ku asaastaan iyaduna rabto adiguna aad ka yeesho gurigiina u daran tahay inaydaan isxalfanin baa dhici karta oo markaad iyadan adigana kharash badan ay ku galiso ayadana aad bukurta ka kala jabiso berinaad kala dhaqaaqdaan baa dhici karta oo gurigiiba lagu dagi waayay laana xaraan baa lagu asaasay ilaahay baa lagu caasiyay Soomaali waxa dhici karta xataa hadaad wada joogtaan inaad isku silixdaan oo isku rafaadaan laana meelay macsiya gashay qasba ka jira deganaansho laan baa ka jiraysa waxa dhici karta hadaad caruur heshaan dambigii aad gasheen xataa caruurtiina inay la socotaa dhici karta ee guriga ku asaasteen marka waxa noocaas oo garamiya gabadh yar laga yeela gabadh yar oo foodley aan rabaa itiliyeel anuguna sheekh waan ka maarmi waay tasadxaad weeyaan meesha waxa ku jirta adeer qawam baa tahay الرجال قوامون على النساء ninkii la rabay inuu wax toosiyo adiga waay gurigana mas'uulka ka ah Soomaalidu waxay yiraahdaan dabaal xumada hiriqday ka bilowday hadaad bilowgii horeba idinkoon is arkinba oon dambi lagu geliyo oo lagu yeeriyo adiguna iska hor orod bari markaad guriga tagto seed u talin doontaa oday u noqon doontaa banaanka adoo jooga haweeneydii xaraanta ku galisay markaad guri isugu timaadaana way kugu wadi maalin ba qorshe cusub nahada diintu ma ogola hadayna ogolayn adeer samee adaa jidka isku furay Soomaa marka wax way hadaad fayowday banaanka joog raganimadaada iyo qawaamadaada ilaasho waxa tiraahdaa maya shariicada diiday lama ogola haday diido Soomaa oo tiraahdo koofeer iyo wax shariicada khilaafsan mooyaan adeer maya aduguna maya dheh النساء سواها كثير dumarku waa badan Soomaa dumarku waa badan in kasto bini aadanka meel uu moogtahay meel maag buulay bini aadanka meel uu iskaga mitid war boqolaal ka qurux badan oo ka diin badan oo ka sharaf badan baad heli maxaa kugu mitidsi adiga marka wax weeyaan habay yaraatee guri baan dhisanaya iyo macsiyo khalad baan ilaahay ka galaya ha sameeyna sida ruuxii kugu diido xaraan ku gelinaya banaanka kamar wallahu a'lam